waayahay bismillahi raxmaan raxiim maanta dagaalka qosol iguma harin heer waxay tagtay dagaalka heer wuxuu gaaray in la is aflagaadeeyo oo la iscaayo ninka Donald Trump asaaka wuxuu soo qoray cayti ugu xumay baastirin yahay waalwaalan eeyaha ah haddaa furi weysaan marinka hormuus ilaa maalinka talaadada idin qabtay naarta idin dira ciyaalka xaafadda oo booteenay ma u malaysaa waayahay qodobada barnaamijka idin ku hayo waxaa sidoo kale ka mid ah see u dhacday xalay buurtii dhulkan buurleyda Iiraan lagu raftay ee lagu baaba'ay maraykanka labada nin waa maraykanka ya saxaafadda sidii noo sheegayso qaar saxaafadda carabtana qaar way qorayaan labada nin waa la soo badbaadiyay mid waa dhaawac culus waaya waxaa qiimeynaynaa marka soo badbaadinta askartaas inta diyaaradood ee ku baaba'day iyo qiimahooda oo aan xisaab dejinaa samayn doona idinkaa yaabi doontaan iyo dhulkan lagu dagaalamay ee askariga lagala soo baxay ee lasoo badbaadiyay la sheegaayo dhulkaas waa dhul noocee ah sideese ciidamada Iiraaniyiinta ee dadka Iiraan ay u gali waayeen intaas oo dhan waa idin taaban doona waxaan rabaa marka hore inaan ku hormaro ninka Donald Trump ah wuxuu qabsaday mar kale wax loo yaqaano waqti kama dambeys ah talaadada ayuu leeyahay marinka hormuus Iiraan waxaan dhagjal qumasayna soo socya ninkan waa markii 150aad uu waqti kama dambeys qabanayo waay asaas ku dhaxay sidoo muuqato Donald Trump asaas ku dhaxay maxaa yeelay maaligu soo kacaba waqtigu qabanaya kama dambeys talaada idin qabtay hadda hore wuxuu dhahay kama dambeys 48 saac idin qabtay kama dambeys 20 saac idin qabtay kama dambeys inta kan caadi almuhim talaada wuxuu leeyahay naarta idin diraya xarumaha korontada laga dhaliyo iyo meelaha muhiimka ah ee ummadda dadka reer Iiraan ee milyanaadka muhiimka ah ayaa idinka burburin doona buundooyinkana dhulka dhigi doona ayuu leeyahay sida qoraalka uga jeedaan waayahay dabcan taas talaadada jaaba hadda waxaa noo bilowday inaan bal fiirino meesha sheekadan ay ku dambeyn doonto laakiin sheekada ugu xiisaha badan maanta aadka loo hadalhayo horta waxay tahay askarta maraykanka ee sida gaarka u tababaran ee ku daatay buuraha Iiraan iyo ciidamada Iiraan meesha isku farsaaray iyo dadka deegaanka ugu badnaa wax xalay rasaasta tuuray maalmihii la soo dhaafo dhan waxyaabo mucjiso waxaa aragteen diyaaradda Black Hawk Down ah nin qori ka wato xitaa midaa lix la dheer watay qoriga lix la dheer ayay yaqaan midaa lix la dheer watay ee diyaaradda maraykanka Black Hawk Down meesha mareysay ee bombooyin soo tuuri karto ayuu lix la dheer la dhacay waaya waxaan rabaa sa u fahantaan missionkan inuu halis ahaa fiiriya Iiraan ayadan warka ay ka soo saartay waa taaban doonaa dhulkan Soomaaliya dhul buuro waxaa jiro hadda maqasheen tusaale ahaan dhulkan waqooyi oo Daesh ay ku jiraan buuraha Almiskaad iyo Almadow ma maqashay wiliga ha dheh ma is weydiisay sanado dagaalkan socdaa maxaa looga saari la'yahay dadkan buuraha Ilaahay uu abuuray meel ka halis badan waa tii maraykanka uu ka saafiriya xasuustaas gala maraykanka buurihii Tora yaa xasuus Tora intay Taliban iyo Al-Qaacida galeen ay laga saari waay al-ultima maraykan gacmaha ku ritaag iskaga tagay Soomaa marka dhulka buuraleyda ciyaar ma ninkan korneel ahay ninka xalay la soo badbaadiyay maraykanka oo ahay pilotkii labaad qaybta waliba hubka iyo rasaasta u qaabilsanaa ninkaas dhul buurley ku dhacay dhulka buurleyda markuu dabcan waa askari tababaran oo u tababaran qaabka uu dhuuman lahaay iyo buurta qeybaha uu sii kori lahaay waxaas oo dhan nin u tababaran waay marka dadkii reer Iiraan waxaa laga yaabaa shalay ilaa darad inaa aragtay iyagoo gawaari soo qaatay xitaa meel lug geli kara ma ah mootooyin ay soo qaateen intaas waxay korayeen buurtii ninka meesha uu ku jiro si loo soo helo marka baadi goob ayaa socday muddo 48 saac al-ultima maraykanka ninka meesha joogay soo ogaadeen ee la kabtaray keeneen ninkii diyaaradii F-15ka ee burburtay ee gandaalka la qabadsiiyay ninkii ugu dambeeyay ee saarnaa ee labaad dabcan waa la soo badbaadiyay saasa hadda kulli saxaafadda inuu sheegaysaa hadda xisaab dejinta sameeyna marka soo badbaadinta halkaas askari ee maraykanka ah ee halka diyaarad ee qiimaheedu uu ahaa $100 milyan F-15ka diyaaradda ninka la burburtay ama gandaalka lagu dhuftay qiimaheedu wuxuu ahaa $100 milyan waaya ninka markii loo soo badbaadiyo waxaa maraykan wuxuu isticmaalay diyaaradda A10 qiimaheedu waa imisa waa $18 milyan sidoo kale maraykanku wuxuu fiiriya A10 way burburtay iidan gantaal la qabadsiiyay inta ay ku jirtay howlgalka sidoo kale diyaaradda loo yaqaano C-130 oo $200 milyan ayuu ayadana isticmaalay maraykanka oo ayadana ka burburtay
waana 200 milyan hadda saas waxaa ku khasaartay soo badbaadinta askarigaas waa inta hadda idin sheegay waa 18 milyan oo meel ah 200 milyan oo meel ah sidoo kale diyaaradan ayadana MH6 oo 7.5 ilaa 8 milyan askari adiga qiimaheedu uu yahay ayadana meesha ku burburtay sidoo kale laba diyaarad nooca droonka ah MQ Reaper loo yaqaano oo 60 milyan joogto ayaa labada diyaaradood ama drone ayaa ayagana ku burburay soo badbaadinta askarigaas korneelka ahaa awgeed xisaabta noo deji marka askariga diyaaraddu wuxuu waday F-15 ah oo burburtay 100 milyan ay ahayd si loo soo badbaadiyo waxaa meeshaas ayadana soo badbaadintiisa kaliya waxaa burburtay ama khasaartay 18 milyan oo meel ah 200 milyan meel ah 7.5 milyan iyo 60 adig 400 oo milyan ayaa ku burburtay soo badbaadinta halkaas askari oo wada diyaaradda 100 milyan oo dollar macnaheedu marka waxaa waaye dhaqaale ahaan marka la fiiriyo khasaare fara badan ayaa galay si loo soo badbaadiyo askarigii diyaaradda 100 milyan waday dabcan guul diblomaasiyadeed u tahay waa dee run tahay oo maraykanka labadaa nin saas uu kusoo badbaadsaday mid waa dhaawac culus ya kan hadda xalay la soo badbaadiyay dhaawac culus waayahay adiga waa ilfanta umaleynaa intaas diyaaradaha burburkooda waa aragtaan maraykan wuxuu leeyahay diyaaradaha dhaawaca gaaray anaga toos u dhamaystirna oo gubnay iiraan waxay leedahay anaga ka gubnay oo dhulka soo dhignay wataa waa isku sawirnay iiraan sidoo kale waxay leedahay buumihii waxaa soo helnay iyo shaatigii dharka uu watay ninka askariga ahaa ee baaloodka ah diyaaradda saarna marka sheekada xiiso far badan ay leedahay meeshaas xalay waa la isku farsaaray si la sheegay laakiin saa u fahantaan dhulku waa dhul buuro leh ah ciyaar laguma geli karo iiraan hadday diyaarado haysatay oo casri ah dabcan inay haysato waa laga yaabaa ay qarinayso xalay waxaa laga yaabay in maraykanka ay kortagtay inuu dhulkaas soo galo trump wuxuu noo sheegay 7 saac inuu mission ka qaatay ninkaa lagu soo badbaadiyey marka almuhim intaas soo kortay ninka trump ciyaal xaafadda camal u caaytamaayo cay ee ka gaartay iyo talaadadee noo tahay haddaanan jilb iyo suxul kaa dharjirin ayay maraysaa baashi